السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليلكو سو دوادا مد كميد ah casharadii ku salaysana ama ku saabsanaa barashada luqadda Ingiriisiga. casharkan waxa wada hadlaya laba qof marka waxaan ku metelaynaa A iyo B. marka casharka ayaan guda galaynaa. A ayaa hadalka bilaabay waxa uu yiri how often do you eat out and who do you go with. marka how sideebaad often had iyo jeer do you eat out ayaad adigu dibadda cunto ugu soo cuntaa. dibadda marka loola jeedo waxa loola jeedaa maqaaxida ama banaanka. goorme had iyo jeer sida ayaad cunto ugu soo cuntaa. sidoo kale who keeba ama qof keeba do you go with ayaad la baxdaa marka ama la aadaa. I often aniga had iyo jeer eat out waxaan cuntada dibadda aan ka soo cunteeyaa on weekends maalmaha fasaxa isbuuci. when xilliga I hang out aniga aan la socdo with my friends saaxiibadeyda. marka wuxuu yiri waxaan markay had iyo jeer dibadda aan aado aan ka soo cunteeyaa weekends ka xilliga when waxa loo jeedaa xilliga ama goorta I hang out aan la socdo with my friends saaxiibadeyda. wuxuu yiri what restaurant do you usually visit. had iyo jeer ama usually ereyada usually waxa loola jeedaa badana. ereyga badana had iyo jeer ama inta badan ama sida caadida ah intaba waa lagu fasiri karaa. marka ereyga usually waxa la yiraahdaa inta badan. marka hadda maqaaxida ayaad marka inta badan ayaad booqataa. marka what restaurant do you usually visit. maqaaxida ayaad inta badan booqataa. well hagaag there are not many restaurants in my neighborhood. maqaaxido badan kuma lahan goobta aniga aan deganahay. well hagaag there is not many restaurants maqaaxido badan ma lahan in my neighborhood deriskayga ama goobta aniga aan deganahay. so sidaa darteed my best choice dooqayga ugu wanaagsan is ayaa ah the daily inconvenient stores like the Circle K mini stop and be smart. marka wuxuu yiri well hagaag there are not many restaurants maqaaxida badan ma lahan in my neighborhood deriskayga. so sidaa darteed my best choice dooqayga ugu wanaagsan is ayaa the daily waxa la yiraahdaa meel suuq ah marka lagu cunteeyo. meelaha cuntada lagu sameeyo ayaa la yiraahdaa inconvenient stores. waxaa loola jeedaa meel dukaamo badan ay ku yaalaan marka like sida Circle K oo dukaan magaciisa mini stop soo kale dukaan magaciisa be smart soo kale dukaan magaciisa. wuxuu yiri what type of food do you enjoy to eat. cunto noocee ah ayaad ku raaxaysataa inaad cunto. what type of food do you enjoy to eat. Western or Asian waxaad ku raaxaysataa cuntada reer galbeedka ama Asiaanku. wuxuu yiri I'm interested waxaan xiiseeyaa in Asian food wadada cuntada Asiaanka ah. Western food cuntada galbeedku is not my thing ma ahan madaan jecelahay ama aan ku raaxaysto. marka it's not my thing waxa loola jeedaa hadda wixii aadan jecelayn ama wixii aadan ka helin ayaa la marka. how much do you usually pay when you eat out. how much imase do you usually ayaad had iyo jeer pay ayaad bixisaa when you eat out marka aad dibadda ka soo cunteynayso imase ayaad bixisaa. it's not very expensive sida qaali uma ahan just around qiyaastii waa $5 for each meal. cunto waliba each meal waxaa loola jeedaa cunto waliba around waxay cagacageynaysaa marka ama ay maaragtay ku dhowdahay ama lagu qiyaasi karaa $5 marka. wuxuu yiri do you enjoy spicy food. wuxuu yiri spicy food hadda waxaa loola jeedaa cuntada bisbaaska iyo maaragtay ku badan yihiin maaragtay waxyaabaha dhanaanka ah ayaa la dhahaa marka. marka do you enjoy ku raaxaysataa spicy food cuntadan maaragtay kulul bisbaaska iyo waxyaabahaas ku jiraan marka.
Yes, I do. Sidaa waan sameeyaa, especially on cold days, khaasatan xilliyada qabowga ah. Eegii hadalkii wuu sii watay, wuxuu yidhi or the servers they are friendly to you. Dadkan adeegayaasha ereyga hadda the servers waxaa loola jeedaa dadka maqaaxida ka shaqeeya, waitress oo kale waaye. marka waitress ama kabalyeeriyaashu iyo the servers dabcan waa isku meeshii marka. laakiin ereyga the servers markay tahay kabalyeeri keliya maana waxay noqon kartaa qofka maqaaxida kuuga ka ah, qofka maaragtay xafiiska jooga, wax walba noqon karaa. marka adeegayaasha ayaa loola jeeda, hadda ma yihiin dad furfuran. Friendly waxaa loola jeeda dad furfuran oo maaragtay qof walba fahmi karaa. marka yes, they are, way yihiin. Most of them are really helpful. intooda badani waa kuwa dad caawiya. marka have you ever tried Italian food? weligaa ma isku dayday cunto Talyaani ah? Yes, at least once. mar ayaan isku dayay when I was in my friend's wedding party, markaan joogay xafladda arooska saaxiibkeyga. marka hadda once waxaa weeye yani mar ayaan isku dayay when I was xilligaan joogay in my friend's wedding party, markaan joogay xafladda arooska saaxiibkeyga. Are you concerned, ma ka welwel qabtaa about calories? cuntooyinkan calorieska ku badan ma ka welwel qabtaa when eating out, marka aad dibadda ka cunayso? cuntooyinka calorieska waxaa loola jeeda cuntooyinkan hilibka iyo maaragtay laga sameeyo. marka yes, waan sameeyaa. I am on date now. hadda ereygan date waxaa loola jeedaa diet, waxaa loola jeedaa maaragtay qofka markii jirkiisa ilaalina. marka hadda wuxuu yidhi waxaan la socdaa jirkeyga, so sidaa darteed this really matters to me. arrintan muhiim ay ii tahay. so sidaa darteed this really matters to me, muhiim ay ii tahay. or fast food restaurants like KFC or McDonald's famous in your country. marka wuxuu yidhi or miyay yihiin fast food restaurants maqaaxidaha laga helo cuntada fudud sida KFC iyo McDonald's, miyay famous ka yihiin, caan ka yihiin in your country, waddankaada? Yes, they are. waa yihiin. The youth in my country, dhalinyarada waddankayga, are big fans. waxay taageerayaal weyn ay u yihiin of the food, fast food. marka wuxuu yidhi the youth in my country, dhalinyarada waddankayga are big fans. waxay saaxiib ama fans hadda waxaa loola jeeda marka taageerayaal weyn ay u yihiin cuntooyinka fudud. Do you often drink alcohol when eating out? alcohol miyaad ama maandooriyaha often waxaa loo isticmaalaa marka khamradii waxyaabaha. marka ma isticmaasha markaad banaanka aad kasoo cuntaynayso? No, I never drink alcohol. alcohol weli maan cabin because I'm Muslim. waxaan ahay qof muslim ah. marka casharkii halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. intaan casharka ku wada doono waxaan kaga tegay sidaas iyo nabadgelyo.